muuse biixi cabdi korneelka ayaa gebi ahaanba laga saaray Somaliland. warar xaqiiqo ah oo ay shabakada wararka xasaasiga ee Arabsiya News heshay ayaa sheegaya in xalay ciidamo booliis ahi korneel Carre ay guriga maayirka Ceerigaabo xalay fiidkii ay ka soo qaadeen, kuwaas oo habeennimadiina soo gaarsiiyey degmada Ceel Afweyn oo ay halkaasi kula wareegeen ciidamada RRU-da oo halkaasi korneelka loogu sii diyaariyey. sidoo kale wararka qaar ayaa sheegaya in ciidamada RRU-da ay korneel Carre soo gaarsiiyeen magaalada Burco ee gobolka Togdheer, iyagoo amnigiisa sugayana ay ka talaabiyeen xuduudda u dhaxaysa Somaliland iyo Ethiopia. ciidamada Somaliland ayaa dhinaca degmada Gaashaamo ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia isku dhaafiyey korneel Carre, iyagoona u sii gudbiyey magaalada Jigjiga. sidoo kale korneel Siciid Cawil Carre ayuunbaa mar qura maanta ka soo muuqday magaalo ganacsiyeedka Togwajaale, gaar ahaan dhanka Ethiopia xigta, waxaana ay mar keliya ay ka war heleen dadka ku dhaqan halkaasi in korneel Siciid Cawil Carre uu ku sugan yahay Wajaale markii uu ka soo socdaalay dhinaca magaalada Jigjiga. Ambabixidan uu dalka ka ambabaxay korneel Carre ayaa waxa ay imanaysaa kadib markii heshiis ay wada gaareen xukuumadda Somaliland ee uu garwadeenka ka yahay madaxweyne muuse biixi cabdi iyo madax dhaqameedka uu ka soo jeedo korneelka, waxaana la rajeynayaa in uu dhowaan uu fuliyo korneel Siciid Cawil Carre qodob ku jiray heshiiska ay kala